ilmahaaga iskuulka markaad u raacaysa waalid laba arrin oo muhiim aan kuu sheegay fadlan si fiican u labiso maalinka ay qalin jabinayaana waxa aad ka rabto inay sameeyaan iyo waxa ay rabaan iyagu inaad u samayso kasii wada hadla maxaan ula jeedaa labadaa qodob waa kow ilmaha gabadhaad dhashay middle iskuulka dhiga iyo iskuulka imanaysaa qaabka soomaalinimadeed u fikirayso adigu ama annagu aan u fikirayno iyo qaabka iyagu u fikirayaan ee asxaabtooduna ay u fikirayaan waa kala labo adduun waxay ku nool yihiin fashion world adduun waxay ku nool yihiin wuxuu qofku xidhan yahay la eegayo nasiib darro adduun waxaa lagu noolyahay qofka lagu qiimeeyo waxa uu xidhan adiga markaan ku leeyahay marka waalidow si fiican u labiso kama wado iska gadgad dadkaa kale laakiin waxaan ka wadaa carruurtaada dartood u labiso gabadhaadu proud ha kugu noqdo wiilkaagu proud ha kugu noqdo waxaan saa u leeyahay runtii waxaan arkay meelo fara badan iskuullada waan tagaa way ii yeedhaan waxyaabo badan baan kala hadlaa on ka caawiyaa waalidiin waxaad arkay iyagoon diyaar ahayn oo qaarkood runtii aan odhan karo anoo weliba si ixtiraam leh oo odhanaya iyagoo jikada ka soo baxay ama odaygu ma aragtay toos shaqadii uga mid oon diyaar u ahayn imanaya iskuulkii arrin dhacday darteed ama barnaamij markaa jira taa ha samaynin runtii carruurta way dhibsadaan waxaan arkayay maqaalu qoray nin la yidhaha walker I think inuu qoray 2012kii waad google garayn kartaa waxaa la yidhaha parent teachers relationship in magacu saas haabaan u marin waad fiirin kartaa waxay yidhaahdaan dhallinyartu ama carruurta runtii aad bay u farxaan istiimkooda kor u kaca yacni kalsoonidooda kor u kacda waalid labisan oo diyaara markuu iskuulka yimaado meeting markaad la gelayso luqadu muhiim aha sababtoo ah inta badan turjubaan bay haystaan ay keenayaan lacag siiyaan laakiin waalid si fiican u labiso ilmahaaga dartoodna u labiso qodobka labaad maalinka qalin jabinta marka inta badan waxaad arkaysaa marka carruurtu ay qalin jabinayaan waa xilli zaxmada waa xilli buuq jiro waa xilli ma aragtay waxyaabo badan ay jiraan laba arrimood baa muhiim kow gift u keen gabadhaada ama wiilkaaga iskuulka ugu keen hadday noqoto buufimaha hadday noqoto gift waxyaabo ay isku sawiri karaan oo qurux badan u keen maalin lambar labo ogow waxa gabadhaada ag jooga waa saaxiibadeed way kala tegayaan iskuulo kalaa laga yaaba inay kala tagaan waxay rabaan inay iyagu isu yimaadaan inay isku meel isku sawiraan ilaan waa saaxiibo adiguna hooyo soomaaliyeed baata waxaa laga yaabaa saaxiibadeed horteeda inaad kusoo jiido tiraahdo naakaale inkaari kugu dhacday gabadha walaashaad ka carraysa isla sawir iyo wax la mida gabadhan marka saaxiibadeed way arkayaan daday isku dhaqan iyo isku diin iyo isku xadaarad yihiin maaha runtii ilmuhu way dhibsan karaan waxaan marka rabaa waalid inaan idhahdo maalinka graduationka kow hadiyadahooda u keen labo qaabka aad rabto maalinka inaad u wada joogtaan kasii wada hadla waxaa laga yaabaa ilmahani runtii waa ilmo maskax furan hooyo waqtigiisii bay koornaan ama aabba waqtigiisii saaxiibada intaan la hadlayo intaan isla sawirayo fine laakiin iyadoo saaxiibadeed la hadlayso haddaad ugu qayliso guriga markaad joogta si aad ula hadli jirtay runtii ilmahaas qalbigoodaa burburay wallahi in badanna waan arkay sidaa darteed saaxiibadood markay iskuulka la joogaan fadlan aan ixtiraamno carruur aan waqti siino xitaa waxyaabaha khaladkay ku dhacayaan gabadha walaasheeda ugu sheeg adiga hooyada ha dhex boodin waxaan arkay dhowr jeer iyaga oo gabdhaha soomaaliyeed ay rabaan gabdho kale oo isku iskuul ahayn inay isla sawiraan ama taleefano kala qaataan islaantiyo soo jiidaysa